السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo wellness with Ikram. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo cudur oo la dhaho schizophrenia. Schizophrenia waxa uu ka mid yahay cudurada oo maskaxda galaan oo cudurada oo waxa waaye laakiin ugu daran. So markii cudurada maskaxda laga hadlayo waxaa jiraan oo anaga waxaan dhahnaa like mild, moderate iyo severe ay kala yihiin which is like cuduro oo saas u dhib badneen oo maybe waxya environmentiga ay cause garaysa iyo dhibaatada markay iska dhamaato ay qofka caadi noqonayso iyo cuduro oo waxa moderate iyo severe so cudurada ugu daran uu ka mid yahay schizophrenia. كلمة schizophrenia معناheeda waxa waaye split mind. So split mind waxa waaye maskaxda oo kala qaybsan. So dadku waxay ku qaldaan qofka oo schizophrenia qabto inay qabto qof oo multiple personality qabto like shakhsiyaad kala duwan inay qabto which is not true. Qofka oo schizophrenia qabto ma aha qof oo shakhsiyo kala duwan qabto ama marba qof noqonayso waa halkii qof oo cudur oo schizophrenia uu qabto. So schizophrenia maxaa lagu gartaa? Waxa ugu weyn oo qofka schizophrenia qabto lagu garto waxa waaye waxay suubisaa wax oo hallucination la dhaho. Hallucination macnaheedu waxa waaye qofka waxay arkaysaa wax aadan adi arki karin ama waxay maqlaysaa hadallo oo adi ay maqli karaynin oo marmar waxay urinaysaa. So calaamada oo hallucinationka waxa ugu weyn waaye qofka inay dad la hadasho ama ay maqasho codkooda waxaan suubi qofaa dhehe maanta dhan qofaa dhehayso waxaan samey inta ka bax waxaan qabo qofkaan xad qofkaan dil so qofkaasay schizophrenia qabtaa ama qofka oo dad arkaysa oo adi laakiin ay arki karin ama saan dhahnay qofka wax maqlayso wax kale oo lagu garto waxa waaye delusional waaye delusional macnaheed waxa waaye waxay aaminsan tahay waxyaabo oo run ahayn so masalan dowladda ay ilaalinayso ama camera la geliyay korkeyga waxaa ku jirto camera oo ilaashahaysa dowladda ay ilaalinayso ama ay aaminsan yihiin masalan waxay aaminsan yihiin masalan waxaan u shaqeeyaa madaxweynaha u shaqeeyaa case oo important ahaa la isoo diray oo makaaga hadli kara hadeertaan secret waaye ku dhahayaan so that's delusion aa la dhahaa waxa waaye waxay aaminsan yihiin wax aan jirin midda saddexaadna oo lagu garan karo nooc waxa waaye paranoia cabsiya ku jirto walwala ku jiro waxay aaminayaan masalan qofkan inay daba dhigata camal hiblaayo inay dishay rabtaa maanta dhan albaabkay xirxiraayaan inuu guriga maka baxayaan waxay aaminsan yihiin qof inay banaanka u taagan tahay marmar dabashaday fiirinayaan qofay arkayaan oo aadan arki karaynin qofkas mujeedaa ninkaas xagga taagan anuu is rabaa inuu idilo soo gurigan ku jiro ay ku dhahay so saddexdaas calaamada lagu kartaa maxaa koos gareeyo qof og ma laha cudurada waxay ka mid yihiin ugu oo weli researchiga lagu haayo laakiin badanaa waxaa la dhahaa maskaxda brain structure wax la dhaho so qofka maskaxdiisa say u samaysan tahay iyo chemical imbalance iyo kimiyada maskaxda ku jirta inay simneen some people waxay dhahaan generica sabab ah laakiin keesyaal badan oo waxaa jiraan oo familka uu ku jiro qofka schizophrenia qabta and then hal qof kasoo dhex baxay so necessary ma aha inay generic ahaato ma aha inay dhaxal ahaato waxaa dhici karto waxyaaba oo hadda researchiga ee baarwayin waxaa ka mid ah masalan inay like environmentiga cuntada la cunayo kimiyada ku jirto waxyaabahaasi hadda baarisa lagu hayaa oo waxaa la isleeyahay inay sabab u noqon karto so maxaa lagu daaweyn karaana waxa waaye basically daawo inay qaadatid waaye qofka oo schizophrenia qabto daawo oo runtii waxa waaye schizophrenia maaha cudurada oo inaad qaadatid fiicnaanaysid haddana iska dhaafi karaysid unfortunately maca alasaf daawada oo cudurada schizophreniada haddaa markaa qaadatid haddaa joojisid haddana waxaa soo noqonayaan hallucinationki which is ina yani haddaa hallucination soo qabtay haddaa wax arkaysa ama maqlaysa ama urinaysa way soo noqonayaan calaamadihii dhan and haddana kowina kasoo bilaabid waaye so daawada is very very important qofka haseed inay qaadada ay iska dhaafin dad badan oo waxaa jiraan schizophrenia qabaan oo laakiin professors oo bugaag qoreen oo daawadood hadday qaataan qofka caadi waaye way kula dhaqmi kartaa mustaqbal fiicanna way yeelan kartaa iyo therapy of course ina qof ay kala hadlaan sidii ay u adjust gareen lahaayeen so qof markay ogaato inay schizophrenia qabto na waxa waaye maxaan ka qaban karaa sidee aan oo la noolaana dadka so adjustmentigaasito qof oo waxa oo therapy aha kala talin karto iyo wax oo support group la dhaho support groupna waxa waaye dad isku imaadaan basically oo wada cudurka qabaan oo ka hadlayaan dhibaatada ugu weyn ay kala kulmaan iyo dadka kaleetan waxay u sheegayaan maxay ka qabteen dhibkaasiito so like haddii iskool kugu adkaay haddii oo shaqada kugu adkeed haddii oo relationshipkaagana xaaskaaga iyo adiga dhib isku qabtiin because of cudurkaaga waxay kula talinayaan experiencegooda iika waxay suubiyeen oo u shaqaysay
so saddexdaasaa ka qaban kartaa marka waxaa rabaa inaa idin soo gudbiyo cudurka schizophrenia la dhaho iyo waxa koos gareeyo sidee loogu gartaa iyo daawadiisa of course schizophrenia ma aha cudur oo anaka isku magacaabi karno schizophrenia qabnaa wey waa inaan daktar kala xiriirnaa psychiatrist daktarada madaxa and cudur oo saas u badan ma aha I think من وين بدن يهمنا بطن رونتي because بقولكي قف هالقف قبض schizophrenia so بقولكي قف مركي لو سكين هالقف كسو بحض أو schizophrenia قبض so statistically uh, I don't know I guess وبدن يا هدي على شخص دد بدن أو schizophrenia قبان أما دتك أو severe mental health قبان لكن the normal individual كأو مالك stop مكهر معنا أو dad oo schizophrenia qabaan maalin kasta ma arkaysid qof schizophrenia qabto so anyway waa intaas iyo wellness with ikram waa mahadsantihiin and insha allah waa inoo video dambe asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu